aryaada heer kala maan anoo xumaaya xuuni cunaye iga raali ahaad ino lan hun eta habaarka dambeeya ka turjumay anigu Soomaaliya yaan idla taliyo qaarannimo tisqaada ka roontoliya reereere federaalka taageerta uu qaba dastuurkeenu inay qoloba gobol teedsata loogu tagaya aryaa tolwa tolana la yiri haddii adiga tol la'aanu ku hayso ununkana tuugtuug aan garab ku naqanne war tolkaaga iyo kabtaada lagama dhaxbaxanay tolka baadilka la dhax jirhe adii naarka la dhax jiri doonte war abwaan cabdi muxuu aamin wuxuu yiri Allah u naxariiste inaan qooqay baa bari gabar qoys korsanayeen isagoon u amar qabin oo qaalin loo geyn xoog kaga qalqaashaday oo yartu way u qalantay baruurteeda laba jeer bushimaha ka qoysaday qabad siisay inantuna mar labaad baqaartii qosol habarti laga sheeg hooyo qaaliluuley anaa qalad sameeyay qoodha lama dilay tir qamuuyoota inantii qowl waxa ka soo baxay ileen qaawinteedii qalashada waraaba igama aadan qabanine adiga ahun guri qabay oo hooyo qooq ku soo waday macbuudka xaa gabartu habarteer u caayday wareed aflagaada meesha ma taale waxaan ula jeedaa maamul goboleedyada iyo dawladdu kuraasta waa iska kacsanayaan baydhabo ciddii ku adkaata ayaana reerka u soo hari doonta war dawanka kana dhagiyoonay dhakaar war asal dhalee waleeri laakiin gaasreedaha ku bahe nimantaa dimeeli ku shuureen ad aragaasa walaagi meelaha ka miisan araga doogna widay war nimanyo baydhabo xog baan ka helay eednaan ogeyn aryaa ku soo xogay ciidanka Ethiopia ayaa la wareegay eelboorka baydhabo maamulkiisa waxaan dawladdu rabina ka soo degi maayaan la yiri kana socomayaan militariga Soomaaliyana baydhabo ay dhaxtaagay yihiin iyaga gacanta ku haya war baydhabo tabeelayaasha nabadii nolol bisa ka maqan war nimayo baydhabo hadduu sharif ka maqan yahay xamar oo fadhiya guriga madaxtooyada ka soo horjeeda waliba marka waxaan dhihi lahaa hawsha la tartiibo odagu saas ku tagi maaye war oday hadii la dhaafay jawaariya la dhaafila lanko hata koor gabar usweydi sidii bari lu gudee waleeri gabartii islaanti wala gudaasi alinjay gargaro anagati ma yaray ay gud walaagi falaasa fal anigo goliko ka damboy doona eri walaagi falaasan fala aw sharif siingu ka damboy doona war xaaf inta galmudug laga qaado in baydhabo loo dhiibo wallahi ma yeelin yaa mahir shabeella Jubbaland gay kartaa mugga walaal Soomaaliland wax kasta hadaa sheegtiin malmaluuqin iyo waxa wataan yeelimayso war xildhibaanadii baarlamaanka koonfur galbeed ka soo jeeday waxay dhaheen maxkamadan isla tagaynaa war maxkamadda heeg bay isla tagayaan warnimayo madaxweyne Cabdiweligaas asxaabtii Twitterka ayuu ku biiray waxa uu soo qoray shirka wada tashiga ee madaxweyne Farmaajo uu ku baaqay waxaan u malaynayaa inuu rabo inuu 10 adag inoogu dhigo sida caawa ku dhacday Real Madrid gooyin waxaan idin weydiin Al-Sayd Ahmed Madow muxuu soo qoray war Ahmed Madow wuxuu iimaha ku soo qoray ciidan aniga amar qaadan oo hubaysato lagu ma arko wareegsmay yaa hayta ilmaha la qoraayo muga aawa dadkii waaweynay awooda lugud eega Ahmed Madow baa la raa'i ama afka la haysan waradhaay war ma haysaane kismaaye maanta waxa tagay baa la yiri wafti uu hogaaminayo wakiilka Soomaaliya ee qaramada midoobay marka faragelintii iyo huluulaysigii inuu bilowday baan ka baqaya naw warwar aan la yaabay ayaan raadiyo kulmiye ka maqlay wuxuu yiri wala weyn baa lagu diriray marka war wala weynay miidan wala weyn ahayn wariya qowdanow daafeed iyo wala weyn imisa kilomitir isku jiraan wariyantan kala lagu biximayne ma daafidan kala jeegtay waa maxay war gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Haashi Cabdullaahi waa odaga dawladda maanta dhisan ugu daada weyn oo way araga waxaan qabaa inuu daacad ka yahay xalka Soomaaliya taladiisa in la qaato oo la tixgeliyo oo maamul goboleedyada iyo dawladduba u jilicsanaadaan fakarka baan qabaa anigu aryaadaha waxa hore loo yiri hal waayeel hadii la yeelo waxarda waxa ma cuni lahayn warnimada war ma haysaana madaxweyne xaaf ciidamada daraawiishta galmudug ayuu gaalkacyo ugu qudbeeyay wuxuuna yiri waa inaad xarar dheera tagtaan marka haddaan nahay shacabkii reer galmudug ninkii xarar dheera qabsada madaxweyne noo ah aryaa daraawiish hadda u qudbeeyay shabaabka ku duulay iyo ku xay isu dhaamaan war maadaan maqal mid bashaar haqaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan daraawiish shabaab ma ka kala qusay isku mid war madaxweyne xeed xoog badana armo tukaraq weerara war qowdanow nin baa yiri hub iyo iima qumana war nimanka khilaafkii siyaasiyiinta ku ekay ciidamadii uu sameeyay kuwii Puntland joogay waxay yiraahdeen aqbali mayno baydhabo sidoo kale ka yeertay Jubbaland qayla ka yeertay Hirshabelle iyo Galmudug naabal ciidan ma lahayn marka go'aankii garoowe dib ha loogu laabto ciidanka Faariisa ka baxo doowe nabad iyo nolol miyaata aryaadaha Soomaaliland waxay tiri shidaalka Itoobiya Djibouti ka dhoofihayso ununka uga dhow ee mahan ha ka dhoofsato
waradeer mahan aad sheegaysa anu ma aqaane Itoobiya saami bay ku leedahay dekada berbera war shidaalkaba Soomaali galbeed baa iskale Soomaalina Soomaali baa iskale dekadii la doonana laga dhoofinaya Jabuuti iyo Muqdisho iyo Kismaayo war reer abasiga la isku haynaadaayo walaalaalnay war kun ila dheega goowdhankii lahay reer banu haashinan laba kala tirsanaa guri jiri geega mare reer abasiini baanu nahayeeri foogtana inuu heer absaxan tagaya ku cad waradeer cidina itraafis u malalugnay war gudoomiyihii lagu kalsoonaayay ee baarlamaanka xildhibaankii maqnaada mushaar helmaayo ayuu yiri war xildhibaan aadan madoobe wuxuu yiri baarlamaanka martidiisa badanayaan mushaarka laga goosan martidooda may u shaqeeyaan markay shaqada ka maqnaanayaan ar xildhibaanadii Hirshabeelle kurtor wasiiraa laga dhigay mushaarna adiga kaama rabaa barnaamijkii waran iyo gaashaana gaaray kuugu jira wixii gaaraya waa cadaalad darro iga tag xamad waa ku dishe